السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قيارة سود وهذا ومركله وبرنامج كنا وبرنامج أهمية وين له كوسابسن دنك immigration كارهان دتك هايستا green card أما permanent residency وحلو يقانو دلك أمريكا أو يجو قدرين يا إن أي دلك أما كبحان أما أي كوسو لابتان بحيتان أي بحين كدب وعن أيجي دونا إن شاء الله تعالى وحيابها كسعود إيربور هذا سؤالها دتك بركي لويديي يو شروطها لو باهي هي iyo waxyaabaha u baahan tahay inaad iska ilaaliso intaba soo hadii uu ku soo gaaro videogan fadlan like star share gare youtube keenana insha Allah ta'ala subscribe soo dheh waan idinka mahad celinaya hadii aan ku bilaabo waxa isu soo taraya su'aalo iyo shuruuc cusub oo bariyahan dambe ay dhaqan galiyeen qoliyahan customs and border patrol ka ama CBP ga loo yaqaano kuwaas oo ay kula kacayaan ama ay weydiinayaan dadka green card ka wata oo dalka Mareykanka ku soo laabanayo waxa ay jira in hadda shalay laga bilaabo sharci uu dhaqan galay sharcigaas oo ah in si gooniya baaritaan loogu sameeyo dadka green card ka wata hadii aan ku bilaabo qodobka koowaad waxa weeye waxa laga rabaa in caddayn la timaadid in aad Mareykanka wax ties aad ku leedahay oo wax ka yaalaan ama wax ka joogaan wax isku dayayaan dadka inay ka qaataan green card ka ama ay kala noqdaanba marka su'aasha ugu horeyso waxa waaye hadii aad soo laabanaysid dalka Mareykanka aad ku soo laabanaysid carry on kaaga ma aha boorsada dhabarka aad ku wadato backpack waxa soo gashataa waxyaabo caddeyn ah sida in aad guri lease-kiisa aad ku qoran tahay oo kale oo guriga aad degan tahay lease-ka waa inaad ku jirtaa aday ku anfacaysaa lease-ka inaad ku soo qortid oo warqadihii lease-ka aad wadatid si aad u cadeysid Mareykanka in aad ku nooshahay waxa kale oo aad qaadan kartaa biilkaaga hadii aad biilal bixiso biilka electricity korontada biilka mobilka biilka whatever biil aad bixiso insurance haba ahaado iska soo qaado warqadiisa waxaad ku soo ridataa boorsada dhabarka aad ku sidatid sidaas la mid ah hadii aad hayso aad bangi waan kulay wad ku qasbanaan doontaa laakiin bangi hadaad ku leedahay dalka Mareykanka qof kasto shaqeeya bangi waa leeyahay bangi statementigaaga isaga rido hadii guri aad gadanaysay oo aad home owner aad tahay oo guri aad ka gadato Mareykankana sidaas la mid ah waxa iska soo qaadataa mortgage kaaga warqadaha aad ku bixiso soo qaado marka arrinkan waxa su'aasha koowaad ba hadii ay qofka qabtaanba ay weydiinayaan tieska aad la leedahay ama Mareykanka maxaa kaaga xiran maxaa rukumo ku ah maxaa maaragtay ku cadeyn kartaa inaad ku nooshahay Mareykanka waxyaabahaas su'aashaas way iman doontaa waana su'aasha koowaad oo hadda dadka ay weydiinayaan okay mid aan marka cadeeyo dad fara badan oo waxa jira hadda soo laabtay oo aysan wax su'aal weydiinin qofka kugu soo aaday ku xiran tahay oo border patrol ka ah laakiin hadeer xaaladdu waa isbedeshay sharcigi waa dhaqan galay aha dadkan in la weydiiyo sababaha green card kan in cariiri la geliyo isaga naftiisa xagga immigration ka Soomaali shahaadada dhalashada marka farta laga saaro passport buu same day apply gareeyaa same day na wuu duulaa si qof lugaha ka xiraa oo kale marka waxa imaanaysa meeshan baa la yiri travel history-gaaga in safarada aad galayso hadaad green card haysataan ka hadlaynaa hadaad safaradaada ay fara badan yihiin they want to know intee aadaa maxaad se u baxdaa su'aashan where do you go and why waa su'aal iyadana meesha ku jirta oo lagu weydiin doono so the question is safarkaaga haduu badan yahay so waxa laga rabaa inaad jawaab u hayso hadaad ganacsade tahay oo aad wadamo kale business ku leedahay which Soomaalida ay ku yartahay arrinkaas aan u safraa cadeynteedii waatana hadaa qofka xanuunsan yahay oo kale waalidka oo kale uu xanuunsan yahay oo aad dhowr jeer iska daba noqotay waa ina cadeyntaas aad siini kartaa oo aad u soo sheegi kartaa because iyaga waxa ay rabaan inay kugu riixaan inay yiraahdaan wadan kale aad ku nooshahay more than inta aad ku nooshahay Mareykanka in ka badan soo sidaas awgeed Mareykanka uma baahnid green card ka waa kala noqonayna inay yiraahdaan ba ujeedkooda yahay laakiin su'aashan way imaanaysaa travel history-gaaga waa lagu weydiinayaa xagee aadaa goorma aadaa soo maxaa u aadaa how long ku maqnaataa waxyaabahan 6 bilood wixii ka yar waa iska okay waa duuli kartaa laakiin oo lugaha kama xirxirid laakiin su'aalahan u diyaar garow
in kasta oo laga yaabo saan idin sheegay in waxba aan lagu weydiinba marka arrinkan isaga ah waa inaad jawaab u heli kartaa travel historygaaga xagee aadaa maxaad soo baxdaa arrinkan waa inaad jawaab u haysaa haddii aad business u baxdo haddii qof xanuunsan u baxdo haddii aad dana gaar oo kale u baxdo kulli waa inaad caddayn kartaa sababaha aad u baabaxdo iyo arrimahaas oo kale waa inaad jawaab siini kartaa officerka ku weydiiya tan kale dad waxaa jira green cardka sidiisaba sharciyan wuxuu ku ogol yahay 6 bilood inaad dalka ka maqnaatid iyo wixii ka yar haddii aad 6 bilood ka badan maqnaani rabtid waa in aad apply garaysaa oo aad si advanced re-entry permit wax la yiraahdo re-entry permitka waa permit ama ogolaansho ku ogolaanayo dalka inaad ku soo laabatid kadib adiga oo ka maqnaa 6 bilood ka badan oo ah in numberkii inta lagu ogolaa ugu badnaan qof green card wata dalka uu ka maqnaan karo so dadka re-entry permitka wata su'aal ayaa u taala already in lagu weydiinayo su'aal guaranteed waayo haddaad re-entry permit wadato oo dalkan aad mar labaad intaad sanad ka badan ka maqneed ama 6 bilood ka badan ka maqneed aad ku soo laabanaysid waxaa adig lagu dirayaa waxa la yiraahdo secondary screening oo screening labaad primary screeningka hore waa su'aalaha hore lagu weydiinayo laakiin haddaad re-entry permit wadato oo kale waxaa laga yaabaa in lagu diro secondary screening re-entry permitka ujeedka laga leeyahayna waxa waaye qofka in uusan lose garaynin asagoo dalka dibadda uga maqan in uusan lose garaynin xuquuqdii uu u lahaa inuu green card ama permanent residency uu dalka Mareykanka ku haysto so waxaa lagu weydiinayaa sababta aad u qaadatay re-entry permitka dalkana aad uga maqneyd intaa in ka badan waxa ay marka ka gaadayaan oo isku raacay waxa waaye in aadan hilmaamin sababtii markii hore aad warqadda u buuxsatay USCIS tana aad uga codsatay ama dowladda Mareykanka departmentiga socdaalka aad uga codsatay re-entryga inaad dalka aad ka maqnaato sanad ka badan sababtii markii hore aad bixisay ha hilmaamin tii iyada ahayd waa inaad ku soo celisaa haddaad sababo kale siiso red flag bay noqonaysaa su'aalaha kugu badanayo wixii aad u baxday wax ka duwan ayaad u sheegtay nimankaas so re-entry permitka xusuusnow sababtii markii hore aad ku buuxsatay applicationka oo lagu soo approve gareeyay haddaad rabtana warqadahii aad ku buuxsatay ama warqadii jawaabta ahayd oo lagugu ogolaaday ogolaanshaha ahayd wado si aad u xusuusnaato sababtii aad u baxday markii horeba oo sanadka ama 2 sano dalka aad uga maqnayd si green cardkaaga aad u protect garaysid waxaan eegi doonaa keeni kara in su'aalo extra lagu weydiiyo in secondary screening lagu diro waxaa ka mid ah in aad license-kaaga dalka intaa ka baxday license-kaaga uu dhacsan yahay ama ID hayso ama license hayso haddii waa secondary ID-ga primary ID-ga waa green cardkii secondary ID-ga ama ID-ga qof shayga labaad ay ku cadaynayo qofka aad tahay iyo waxa aad tahay waa license-kaaga ama ID-gaaga haddii license-kaaga ama ID-gaaga uu dhacsan yahay meeshaas su'aal ay ka imaanayso waxaa kale oo su'aal keeni kara ama red flag ku tuuri kara in aadan haysan banki accounti dalka Mareykanka aadan ku lahayn in aadan shaqaynin oo kale oo work history aadan lahayn oo recent mar dhow in aadan shaqaynin oo aadan wax cadayna oo shaqo aadan haysanin because waxay u qaadanayaan taas waxa ka sii duwan in aadan close family aadan ku lahayn like xaas iyo caruur iyo wax ku jooga dalkana aad ka maqnayd sanad iyo wax ka badan re-entry permit aad ku soo galayso qof marka waxay ku arkayaan wax connection aan Mareykanka aan la lahayn baahina aan u qabin in halkan aad ku noolaato so ujeedkooda waxa waaye inay ku dhahaan green cardka uma baahnid dalkanna joogitaan oogama baahnid anyways waqti aan naga luminin iska laabo inay ku dhahaan oo ay ku diidaan haddii dalka aadan ka shaqaynin family aadan ku lahayn close account aadan ku lahayn bangi license-kaagi expired uu yahay waa all this waxay cadaynayaan in wax connection dalka Mareykanka aadan ku lahayn marka maadaama aadan u baahnayn ku noolaanshihiisa green cardka waan kaala noqonaynaa ayay wadaan iyaga ujeedka ay kala yihiin waa intaas oo meesha inay ka celiyaan baa laga yaabaa ku dhahan dalka you don't qualify inaad soo gasho dib u noqo marka arrinkan waa arrin isagana muhiimadiisa leh in laga warqabo waxaa kale oo soo kordhay
hadeer waxaa la isku xiray oo systemkan Trump intuu imaaday ama dowlad maamulkan cusub administrationkan cusub intuu imaaday waxaa la isku xiray IRS oo canshuuraha laga xareynayay iyo immigration systemkii hadda way isku furan yihiin so waxay arkayaan in aad xareysay tax return inaad xareysay sanadkii lasoo dhaafay sanadkii ka horreeyey ka soo horreeyey qof kasta oo shaqeeyana canshuur waa inuu xareeyaa taxeska aad xareysay marka hataa waxay eegi karaan oo ay fiirin karaan siyaabaha aad u xareysay haddaad non resident alien ahaan aad u xareysatay green cardka markii adoo green card haysto non resident alien haddaa ku xareysatay shaki ayaa galaya iyaga naftooda dalkan ma degani camal laakiin waan ka shaqaystaa canshuurna waan ka bixiyaa oo kale so best advice waxay noqonaysaa talada ugu wanaagsan in aad qof CPA ama certified public accountant aad markaa xareynaysa tax returnka aad kala xajootid waa in aad qof permanent resident ahaan u xareysataa tax returnkaaga so IRS iyo immigrationka hadeer waa la isku furay arrimahan oo dhan marka waxaa keenayo adkeynta la adkeynayo howlaha la xiriira immigrationka haddii hataa ay wax go'aamiyaan in iyaga naftooda ay go'aamiyaan inaadan dalka xaq u lahayn inaad soo gasho form waxaa jiro aad kaga taqluusaysid ma raba waa green cardkiina formkaas in aadan isku saxiixin oo saxiixaaga uusan ku dhicin waa very important waa muhiim inuu formkaas saxiix uusan kaaga dhicin oo aadan saxiixin haddii wax su'aala ay qabaan lawyer immigration qabso oo arrimahan ku shaqa leh lawyerka hala hadlaan waxaan weliba si fiican u fiicnaan lahayd in qofka inta uusan soo bixin inta uu waxan oo proof horta loo sii diro leasekii bank statementkii mortgagekii whatever u baahan yahay paperwork oo dhan documents in loo diro sidaas lamidana lawyer haddii loo sii qabto markuu imaado haddii wax su'aale ay ka imaadaan primary secondary screeningkiisa in uu lawyerkiisa uu numberkiisa seeni karo uu dhihi karo lawyerkeyga la xiriir inta uusan wax form saxiixin oo aan hoosta loo gelin inuu iska tuuraba ama iska daayo green cardkiisa marka arrinkan waa arrin very important muhiim waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe garaysaan share garaysaan insha allahu tacaala programkan waa program muhiim wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh